waxaa jira erayo halmuceed ah oo gabayadiisa ka mid ah oo la xasuusto waxaan soo qaadanayaa kuwa ka hadlaya in qofku haddii dhibaato uu sameeyo ay dib ugu soo laabanayso markaad aqalka deriska gubtuu kaagu ololaayay nabad iyo ammaan aad heshide ha isku abyoonin iyo waliba riwaayadii aan baxay ka jooga adiga ma aha iyo beenay raadka raacda kugu maqan waxa intaas garab socotay tumista muusikada oo ilaa qalab kala duwan oo muusikada door muhiim ah ka soo qaatay heesaha iyo bilcintooda ayuu abwaanku qayb ka ah ayuu tumay sidoo kale waxaa dhif iyo naadir ah in abwaan uu gabayadiisa ka dhigo heeso waxaa jira heesta caanka ayaad garanaysaan ixtiraam gobaad waa gabay abwaan barre maxamed fiidow wuxuu tiri heeso fara badan oo arrimaha jacaylka ka hadlaya heesta ruun waxay ka mid tahay heesaha ugu qotada dheer oo abwaanka curiyay oo ka hadlaya arrimaha jacaylka abaalkaadiga amnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ruunay ugu cadaalibka ku jeclahay abwaan barre wuxuu tiriyey heeso badan waxaa ka mid ah markaan da'da jiray 15 ubixi jacaylka kaska cad buugga aleel oo intaas oo xoga iyo ka badan bay ku jiraan waxa dhawaan lagu soo bandhigi doonaa magaalada Muqdisho buuggaas waxaa qoray Cabdirasaaq Xasan Yardhi waxaana lagu qoray abwaan barre maxamed fiidow waxaan rajaynayaa inaad aad u xiisayn doontaan ka soo qaybgal waay